Australia ku dhaqan waxa laga leeyahay wixii af Soomaaliga ku hadlo ogaada geela Soomaali baa leh geela waxa laga leeyahay burco tog dheer baa laga leeyahay Soomaalo dhan uu ka dhaxeeya geela sidii la inoogu soo dhicin laabaan ayaynu doonaynaa geela waan idin sheegayaa ninkii giib looran jiray ee xukumi jiray burco markii la dilay uu yiri cashuuriye gibirkeena la diiday geela markii dabadeedna geela markii giib la dilay 2000 oo halaad habar yoonis baa geela lahayd 2000 oo halaad ayuu gaalku ka qabtay inayga rana waa joogay dabeedna 2000 inayga raa horta ayaa la yiri inayga roo maxaynu reerka ku samaynaa 100 nin ma ka dilaa madabuudi inayga raa ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo seer way baqtiyayaan 2000 oo halaad ka qaba buudi 2000 oo halaad baa laga qabtay habar yoonis 2000 ee halaad kunna waa laga xaraashay kunna Australia loo raray geela Australia loo raray iyo Kenya isu eega geela inaga leh waa dabadeedna gaalku yimi Sheekh Maxamed Wali buu yiri marka caasimada halkii Hargeysa ka tay burcay ahayd Sheekh Maxamed Wali oo nugumbuura ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ayaa la yiri xukun giib wuxuu yiri xukumay gaalka magtiisu waa 3 iyo hal daloolkeed halkaas dabeed Maxamed Sheekh Maxamed Wali waxa la hal dilo kaana waxa badbaadiyay inay garre wuxuu seer dili mayno isaga iyo caruurtiisa inuu aroori ku tuurayna markaynu aroori ku tuuro wuu baqtiyaa sidaas ku baqtiyaa shaqadana waa ka qaadina magaaladana waa ka saarina Hargeysa tagay qaadi dabeedna caasimadii ku qaado qaadiga Hargeysa oo nin ciida gala Hargeysa markaa ciida gala lahaa malaayimka waaba lagu haystaado waxaan u maleeyaa inay wari ku sii nool yihiin marka qaadigii